stable coin haddii la dhaho ustaadi aada umaadsantahay marka hore. Stable coin maxaa la dhahaa waa futureka meesha loo socdo waaye. taasna waa ku celceliyaa hadafkana keliya loo sameynayo maraykanka ay u riixayaan fursadaas waxa waaye dollarka ku ilaalinayaan mafahante. So marka kambaniyo badan baa jiro dareensan in uu tareenka ka tegey, laakiin haddeertaan markale kusoo yani tareenka gadaalka soo qabsaday haddana si xawlina usoo galaya ayagoo cabsana ku jireen. maalintii la sharciyeeyey stable coin oo congresska sharciyeeyeen that day albaab weyn baa loo furay new system lacageedka maxaa la adduunka. marka stable coin waa bilaaw, laakiin wuxuu noqon doonaa rule aad u weyn dhanka maaliyadda adduunka. waxaana hogaaminaya maraykan iyo kambaniyadiisa hogaaminaya mafahante. So we will see say noqoto. laakiin waxaan hubaa in ay bilow tahay gamekan bilow inuu yahay. kambaniyo waagii hore ka xabsanayay inay suuqaan soo galaan ay maxaa la hadda si xawli kusoo galayaan dhanka iyo USDT kusoo galayaan. laakiin haddii USDT la sharciyeeye BTC-na asikeed ahaan dowladda u cilaamisay, laakiin weli maxaa la dhahaa sharci ma aragno sharci dhahayo bahashaan waa asikeed ahaan bay u sharciyeysan tahay. weli ma lahayo, laakiin waxaa la hayaa in ay sharciyeen ETF-yada. So we will see. taasna waxay noqonaysaa iyada naftigeeda good point for cryptocurrency iyo BTC. dadka asxaabta long termka BTC u haysto oo si tartiib u godanaya. marka waxaa waaye beginning of the game waa bilowgii gameka waaye mafahanta ustaadi. bilowgaan joognaa. anaga waxaan ku mashquulsanahnay koonen yaryar oo nagu hayo maxaa la dhahaa 50% minus 60% minus haddii focuska la saari lahaa koonyada waaweyn maaragta ya laga yaabaa in minuska uu aad u yaraan lahaa, profitkana aad u yaraan lahaa, laakiin lacagteenana ay mar walbo ahaan lahayd lacag meel safe ku jirto mafahante. 3 koon 4 koon ugu horeyso qofka investment hadduu ku sameeyo sanadkii hadda xataa lasoo dhaafay anigu umalaynaya inuu minus galaayo. laakiin we need sometime waxaa loo baahan yahay quick maxaa la dhahaa potential. haddaad aragtid waxaa u baahan tahay quick, laakiin marmar quickkaas aa raadinaysid baa shabaqa ku dhacaysaa mafahante. laakiin diyaara loo yahay because we are take risk taker baa nahnay, dhalinyaraan nahnay. adduunka gadaa wax badan baa noo dhiman adduunka. marka hadda anakoo dhalinyaro aan riski qaadan weyna doqoshinka baan riski qaadanaya waa maya. so riski waa la qaadanaya, laakiin adigoo si taxadara risku qaadanaysa qaada insha allah. meeshaan waa tawfiiq waaye. hadda waxay kuu qoran yahay waa ka qadanaysaa meeshaan. hadday kuu qorneenna waktigaaga la sugaysa insha allah. waxaa isdhihi lahayd odayga John Paul la ceyrinaya aad og tahay in by May inta laga xayuubinayo haddii isbedelo oo dee Trump boqorrada u sameeyo atinso inuu joogi doono, laakiin oday adag. marka waxaa leedahay 2026 waa still bull market baa lagu jiraa. bas dhinaca soo qudhigtay saasaan u malaynaya inay tahay. lagu jawaab adiga. fiira ustaadkii cabdihadi hadalkiisa gadaal baan ka dhageystay. gadaal baan markuu hadlaya inta ugu badan hadalkiisa ma dhiga maqleen. laakiin hadduu taxliilintiisa ay tahay meeshan waa circle full year circle ama mar walbo haddii aan waxaas xisaabno asa bull market ahaan loo xisaabo. bull marketkana suuqan waxaa arkay only BTC baa aragtay, altcoin lama arkin. marka haddii taasaan ka hadleyno
iyo aan ka hadlayno stock marketka bull marketka ka jiray laga soo bilaabo 2023 bilowgeeda. From that haddii aan soo tirino yani suuqan lacag aan caadihin baa ku socotay. maxaa la dhahaa all time high buu sameynayay dhanka stock marketka, dhanka kiribtada khaasatan BTC. taas haddaan ka fiirinayno laga yaaba in bear market uu galo suuqyada dhan ay galaan, laakiin bear market maaha bear marketyadii waagii hore aan arkayna, because maxaa badbaadinayo markaan waxa badbaadinayo waxa waayey furfuritaanka dhaqaalaha ee Maraykanka oo 40 sano hadirtaan yani marketka wuxuu khilaafay systemkii khilaafay. Systemkii wuxuu rabay inuu cunaqabateeyo dhaqaalaha, laakiin suuqa marketka oo aan shaqo ku lahayn maxaa la dhahaa kubaca dhaqaalaha ee Maraykanka oo kaligiis iska socday wuxuu khilaafay sidii ay rabeen timkan Jerome Powell. Sama marka taasa waxay keentay in aan aragno last 3-4 years in aan aragno kor u kac waxaan ahayn hoos u dhac dhan ma arkayno. Samaan okay, hadda waxaa bilaabanayo in suuqa cunaqabateynka laga qaado dhaqaalaha Maraykanka, in focuska la saaro shaqada iyo shaqaalaha, in shaqo badan la abuuro, in suuqa lacag la soo geliyo. taasna oo waxyaalaha ay caawinayso suuqan. marka suuqan asagoo lacag ka maqan buu wuxuu aadaye mar walba all time high samaysanayay. marka haddii cycleka la dhoofo years cycles ama 3 year cycles, suuqa wuxuu u baahan yahay inuu nasto, waana qasab inuu nasto. nasasho way imaanaysaa, laakiin ma aha sidii 2022gii yani xanuunka badnaa oo caajiska badnaa iyo I don't think saas inay noqonayso. hadday ugu badato maybe 2 months 3 months 1 quartal gudaheeda kwartaalka labaad inaan correction aragno, kabacdi from after September aragno haddana dhaqaaq kale oo super cyclekii oo ninka odaga ah ka hadlay in la arko. wixii dhan haddaa isku fiiriso waa isku imaanayaan. super cycleka uu sheegayo waxay ku imaanaysaa Soomaaliya suuqan in la fududeeyo, dhaqaale la furo, interest rateka la yareeyo, kabacdi markaas waxa waaye super cyclekii uu sheegayo oday Trump. markaas inaan aragno caqabadahan badan oo dagaalkan badan oo wadamada uu ku hayana aan ka gudubno, then we will see super cycle 1. marka correction ma arkaynaa, laakiin correctionkii aan aragnay bear marketkii la yaqiinay ma noqonayo. hadday ugu badato 1 quartal hal quartal keliya aan hagalinaa correction aan saas u weynayn, then after that we go to the moon. ma fahamti? ana saas aaminsana. The BTC stablecoin isku mid ma noqonayn Ustaad Shakur, because stablecoin waa lacag degan oo dhacayn. BTC-na way daadaadanaysaa xataa haddii la sharciyeeyo. ma u malaynaysaa inay isku mid noqonayaan? stablecoin waa stable, waxaa daadanaynin oo dhacaynin waa BTC iyo stablecoin isku mid maahan. BTC waxa waaye mar walba BTC waa one BTC waaye, ma fahamti? yeah maxaa one BTC is always one BTC waaye. laakiin dollar volatility ilhaanay ma waa xataa haddii la sharciyeeyo. no adi waxa u fikirtaa mataqaana si kale u fikir. adi dollar hadda hal dollar haddaa haysa haddaa sarifanaysid dollarka always wuxuu valuegiisa dhimanaya soo maa ya. marka laakiin BTC always is BTC, ama boqol ahaato ama magaciisa ahaato, ma fahamti? ya marka ma ku dhacayo inflation meesha laga cararayo meeshaas waa, ma fahamti? laakiin hataa stablecoinka inflation ma ku dhacayo soo maha. stablecoinkana $1 loo ahaana. No. Inflation. BTC way raqiisa wayna qaaloobay abanda bay aadaysaa. Maya inflation kuma dhacayso. Maya waxa ka wada kala saar. waxa ka wada BTC it has quality, then waxa waaye value ay haysataa iyada,
waxaana deedeelku jabayna waa taas waa ka yeelaa جميد معها حتى هدي محل انها $100 او USDT هي $100 او بي تي سي after 1 month waxaa laga yaabaa BTC daada inay maxaa la dhahaa boqolkaaga inay 200 ku noqoto inay 300 ku noqoto could be inay konton noqoto moogtahay stable coin-kayga boqolka hayna inuu boqolkiisa joogo laakiin could be dadka dhagaa ila ka dibi yarta caawada guuda galad no you're right you could be laakiin ada boqolkaas hadda suuqa la tagtid kuma goonayo a month after month wixii ku goonayay maxaa la dhahaa ii sheeg isla wixii ku soo qaadatay yani dukaanka waxa la tagtay 2 months ago dukaanka waxa la tagtay $100 waxa soo qaadatay some project soo qaadatay ka soo qaad bacdaada waxa ku jirto ilaa 6 ilaa 7 shay ma fahantay after 2 months isla boqolkii marka dukaanka la tagtay kuma helaysid 6 project maxaa la dhahaa aad ku heshay 2 months ago 2 months waa period aad u yar laakiin waxaan ka hadlaynaa waqti dheer aan ka hadlaynaa a year 2 year adi xitaa waad dareemaysaa markii aad aadi jirtay marketka supermarketka ugu weyn xaafadiina magacii ya Tesco markii aadid bac qaadatid oo gaari markii aad bixisid $100 3 years ago saddex bac soo qaadan jirtay soomahan haddana hadda how many baca meesha ku hadda how many baca ku gooyaa maxaa la dhahaa ii sheeg lacagtaas maya hadda inflation ajar waxyaro ii gooyaa laakiin hatta BTC hatta ma la dhahaynina hatta la dhahay mogta 15 iyo 30 kun inay tagto way adag tahay laak 70 kun inay imaadii 80 kun 126 kun ay soo taabatay isa same waxyariis waxa waaye BTC value waxa weeyay lacagta faraha badan oo ku jirto BTC idin madax martay والله أنا أنا لكن واحد لا يابنا فيري one minute فيري واحد لا يابنا one thing أنا لا يابنا of كنجرو كريبتو كارنسي يا أو ربو كريبتو كارنسي إن محل دا كل عجزتو أو ربو كريبتو كارنسي إنه برتو أو كريبتو كارنسي ونقض أدون كيسا أو ديدن BTC اسمه خبرنا يسو you need to accept no أنا BTC ما ديدني لكن أنا سانكا يقولينا because BTC وما آمن سني sida dahabka iyo diamondka iyo dhulka iyo guryaha aan u aaminsanahay absolutely hadda BTC sidaas u aaminsanayn inay ku siinayso profit altcoin ina aamintid maaha maya way siinay waa aaminsanahay inay profit siinayso waxaana dhihin sankay waxaan dhahay BTC profitable way tahay lacag waa laga samayn karaa laakiin could be tomorrow inay $30,000 imaado shakuur tomorrow wallahi wax ka celihayo aad iska yarbo waxaan waxa waaye internet wax ku dhisan waa risky dadkii sameeyaa kule risky asad waaye still cabsida kaaga jirta cryptocurrency still cryptocurrency cabsiga kaaga jirto so waxa u baahan tahay reset marka waxa maan leeyahay cryptocurrency cabsi igama jirta suuqan maba daadanayo oo BTC ma daadanayso oo bear market ma la geli karo oo madii ani amaliye xataa fiiriya bear market la galaa oo waxaan way daadanayeen oo hadda cabsida xataa iguma jirto laakiin wax la isku halayn kara ma tahay aniga questionka BTC iyo cryptocurrency iga hor yaal waxay tahay war ilaa intee aniga BTC aamini karaa ilaa intee aamini karaa see u aamini karaa BTC sida dahabka oo kale sida u aamintay Solano oo lacag u gelisay sida u aamintay maxaa la dhahaa ii sheeg suuy oo lacag u gelisay ma u aaminaysaa because ayadu taas waa u aaminsanahay markay lacagtiisana waa ka baxsanayaa ani xamaraan guriga gadanayaa haddana taas le waaye maxaa shaki ku gelinaya أنا ولقي مدين إن العقل لما سمين كر BTC أم بالعقل ما سمينيسو BTC أسد في عمر ولا عقل لما سمين كر لكن BTC دايما ما بتعبنا ما بكذا يبو ولقي بمدعس تاسو يعني وحق سهر جد تذكر ماكسي عكاد اللي سميها سيدا عبدي أستاذ عبدي هادي أو ده أنا حتى أروسكم أروسها العقد BTC كورنا دقيقة لو حدها يعني BTC هذا أنا ما أنت
hanti haysa lahaa guurta BTC aan gada lahaa guri wuxuu sheegaa dahab wuxuu sheegaa no antaas ma aragtay ama taas adiga point baa leedahay fiiri stable coin here I will go this point as well. Stable coin waa lacag waa lagu aroosaa waa lagu safraa waa lagu baashaala daruuriyaadka lagu bixiyaa BTC na waa kadalik ma fahantay lacag ku sameynaysaa lacagtaas maaha inaad la dhimatid profit markay ku sameeyay أنا مش عندي سنة صح برفض يكون سميني وكوبا شال عن هدي رنتنا كصبر كل خوا أظن يا سوق صادق شو مقطع ما أنت هذا هاس حبت BTC أبهاف قدر إما دوسوق عن كراش كروبو لكن the problem متقنا هذا Germany وهي ستي لورو بقولوا BTC I don't know how much was فهمتي لوركاس بقولوا BTC يا sanad ka hor iska iibisay hadda iibin lahayn waxa lagu leeyahay intaas bilyan maxaa la dhahaa ay los garaysay laakiin haddii aadi lahaa meesha ay ku iibisay 50% down listen ganacsiga dhan asaase horu baalka inuu horu u socdo ma gadaal ma soo noqonayo no back ala bakan fiiri nin waxa jiro oo BT's pizza ku cunay 2020 shakur 2020 markay $69,000 tagtay 17,000 maxaa soo celi ma laakiin markaas duruuf baa keentay hadda duruufta ay ma karto adduunka la joognaa ma duruufta ay adduunka yaa ka dhimay hadda ugu xun tahay bo duruufta 2020 jirtay hadday ka daran tahay hadda 2025 haddaan wax laga bedelin midda ka dhacda suuqyadan fiiriya hadday ka xun tahay adduunyada duruufka ma dhamaato لكن فيري waxaan ku sheegaa professor waxa la isku haystaa mataqaana duruuf walba had dhacdo dhibaato walba had dhacdo asadkii ay haysatay ya before BTC 20,000 aadin asadkii ay haysatay misal 20,000 markii aadaysa aad soo iibsatay misal kunta markii imaanaysa first time aad soo gadatay asadkaas ay haysatay is still worth it waayo beer market baa la galay dhibaato baa la galay ummad dhan baa dhammaaday ay still waxa asadkii hadduu safe ku yahay meel kugu jiro BTC weli lacagta ku sameynaysayo kontonkii tii hore ku iibsatay hadda konton baa plus ku ah saar ma qabtaa faa'iido ma qabtaa beer market ay imaanay BTC waa la soo celiyay haddana markii 40,000 lagu soo celiyay adiga miskii ibn waa haysataa haddana they move again 200 300 400 khasaaro ma qabtaa ما قمت خسارة بروبلم والبقى هذا BTC هذا هي ستي أنا هي أيدي صاشة بروبلم كستوي ما BTC نيجوجي اسمه تي هورا وحيد موز الجواب تي هذا مصون عرفتي 15 مركي جارسي أو كورونا جري أو محل ده دجال كي روسيا أوكرانيا معي أو إنترنت كي كل لوق هذا تاسع محدين كوه BTC هذاك تاي أنا وكيدي ذا مركي 20,000 إمادين عن قطع أو مركي بقولتك تكبحه markay la konton imaatay inaan gato 7 markay tahay aan tagtay waa runta qofku diiday malahan fiiri waa runta dad baa jira markay 15 markay 17 maraysay dad baa waxay dhahayeen 10 aan ku sugeynaa 10 imaanaysa waa qasab inay imaato ilaa hadda way sugayaan ma fahanted